الرحيم أدب ما تنتهين وحنربا هل كان نكسيه وربحينتا الصومالية كوا كنت الآن سفر كي وهل كان كوي مد رئيس وزراء دولة الفدرالية الصومالية مدن حسن على خير وكوي بس الله تكي بشيء جولاي جوجنا إلى حد يرتان لبدي أغسطس سفر كاس وها سفر بلارن ورئيس وزراء كنت جي قبل ده بنتنا قاركم ده أيامانتا أو أيتها لبدي بش أغسطس وحا هل كان كوقب صوب الشر وإذا شره ويكون شين دولة الفدرالية الصومالية هي دولة بنتلان شركاس oo laga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ugu muhiimsanayeen wada shaqeynta guud ee dawladda federaalka iyo dawladda Puntland si loo wada shaqeyn lahaa gaar ahaan wasaaradaha iyo horumarka guud si ay wada qaadan lahaayeen labo waxa kale oo laga wada hadlay xoojinta dawladnimada Soomaaliya iyo xoojinta hanaanka federaalka oo ay kamid tahay maadaama dawladda Soomaaliya iyo maamuladu ay u tilaabsadeen dhinaca horumarka iyo xasiloonida in loo xoojiyo dawladnimada iyo federalismka waxa kale oo si wada jir ah looga wada hadlay sidii Soomaaliya dawladda sidii Soomaaliya looga dhaafi lahaa deynta ballaaran ee 5 billion ka ee lagu leeyahay si ummadda Soomaaliyeed u hesho mashaariic horumarineed maadaama Puntland ay ku hawlan tahay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo ballaarinta mashaariicda adeegga dadweynaha ayaa wax muhiim u ah Puntland dawladda federaalka mashruuca ay wado gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo ah sidii Soomaaliya looga dhaafi lahaa deynta ballaaran lagu leeyahay si uu hirgasho in Soomaaliya oo dhan ay u qaadato mashaariic horumarineed waxa kale oo laga hadlay guddiyo farsamo in la sameeyo oo ka shaqeynaya guud ahaan qodobadii dawladda federaalka iyo dawladda Puntland isla garteen in maaragtay muxuu ah si wada jir ah loo dhiraandhiriyo isla markaana ra'iisul wasaaruhu wuxuu xil saaray arrimahaas xafiiska ra'iisul wasaare ku-xigeenka inuu dabagalo oo xalaal wixii qorshayaal ah oo isla qaateen dawladda federaalka iyo maamulka Puntland arrimahaas ugu muhiimsanaa arrimihii maanta laga wada hadlay hadeertaana shirki gaarka ah ee golaha xukuumadda dawladda federaalka ayaa lagu jiraa waxaan ka warbixin doonaa wasiirka faafinta dawladda federaalka sidoo kale waxa la qabanayaa xafladii 1 Agosto awal qayb qaab farsamo dib ugu dhacday ee 3 bisha Agosto oo habeen dambe ah baayadana maartay muxuu ah dhammaan wadada Puntland aan ugu bishaareynaa xafladda la qaban doono aad baa mahadsantiin